Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu ayaa markuu hijroonayay ardul hab markuu hijroonayay Madiinatul Munawwara nimankii mushrikiintu dhaxday u galeen argaasay ku soo baxeen nin malqabeen Abu Suhayb radiyallahu anhu Aba Yahya waxay ku yiraahdeen Suhaybow adigoo sacluuka oo faqiira ayaad magaalada Makka noogu timiday waxa dhaqaale ee maanta haysatana magaalada Makka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxa doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid Makka dhexdeeda aad ka samaysay inaad Madiina la tagtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yiri waa ku dilaynaa wuxuu yiri waad dilaysaan laakiin ana waan dili buur ana wuxuu ma niga dili ogaada buur dagaalkana qaana buur nin waxaana hay Roomiya leebka sida loo gana ayaan qaana haddaad idishaan waad iga tira badan tihiin laakiin ana rag baan galaafan buu ku yiri haddaad dhaqaale oo doonaysaan dhaqaalaha ana ay nisiin buur lacagteedii oo dhan waan nisiin intaan watan gacantan iniga saari magaalada Makka ee ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaalana waa nii tilmaami laakiin dariiqa ay banayay buu ku yiri dariiqaas waayo nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadeedii baa ka daba tagaya iimaankayga iyo diinteyda ayaan ilaalsanayaa iimaankayga iyo diinteyda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqa ay banayay buu ku yiri mare agtooda diinta qiimo leh agtooda maxaa qiimo lahaa iimaanka lacagtu qiimo ma leh وهاجاك بيدادين لعقتي بقعنت كسر وكان قات مقالة مكان من الهبلاية العقبة يقول آسنا كسر فقط يقول هل كان كلا صباح لكن وضد أي بنا يبكوني رسول كيجيب أن نتجي عليه الصلاة والسلام ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هجرة أسعدان هجرة مؤبدة ماها هجرة يرو واختيار أو كوبان انتي مقنادان أي مقالة مكة كسون نغنيان ماها وهجرة مؤبدة أقل ذو ذي بيكتغيان بيروه ذي بيكتغيان تجارة ذو ذي بيكتغيان قرابة ذو ذي بيكتغيان وحي دورتين إلهي رسول قيسي دورتين وحي ودن بوسيي وددي bay u baneeyeen markaas oo socday hal saaca gudaheed ayuu ahaa nin qaniyo malqabeena saacad kadibna wuxuu noqday nin faqiir uu noqday soo faqiira oo gacantiisa shilin ku jirin ayuu magaaladii Makka Madiina soo galay baa la yiri ayaa soo dhaweeyay nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam oo muxuu nabigu ku soo dhaweeyay ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى أبا يحيى بيعك قناعسك هذا إلهي لقى شيء واتكم عايشين النبي وكيد ما أنت لأن اختبار بوها اختبار إلهي الرسول كأردنع يا دوية هذه أردنع كلا دورة بيهيد لأن إلهي عز وجل وحو كل هامية صحابي قاس إنه يراد العقد قيمة ملقاتها لكن نبي الله محمد بان كدبت تجي فرها يقعد وضدها إيه بنية امتحان لأن مركز النبي يقول لي ربح البيع أبا يحيى بايع مشتركة ما أنت إلهي أدي إلهي ندحمري وأتكلم مع الشيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أوشيك النبي قصة العادي وحي با نبي الله أوشيك وحي ماشى قضيته أي كذا عايز ومكة ودويد تلفونات زمن كان هاي سنية آلات كان أقوى اتصال الناس سريعة وحي أردن بأدوية ده مركبة وجود بيني ما هيسن لكن جبريل بنبي كسر دقو وجو الرمية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مؤمنين توحى كمدة بإلهي إلهي من نفتي سي حوله سي دقاله سا كويب سنة يا إلهي رضيه سا وأبا يحيى أيا كمدة بلقيري صهيب الرومي بصوص سعدا ودقاله سي كدورتي إلهي الرسول جسن رالي قليا كدورتي لعقتو أكتو قيمة مله قبيلكو أكتو قيمة مله
dibloomku agtooda qiimo ma leh aqalladoodu agtooda qiimo ma leh dhulkoogu agtooda qiimo ma leh agtooda waxaa qiimo leh ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam innakana maanta dhallinyaradeennu hadday cadhoodaan waxay ku cadho baxaan inay ilaahay nebiga aflagaadeeyaan ay diinta aflagaadeeyaan oo malaa'igta aflagaadeeyaan oo miyaanad ogayn niman qur'aan akhrinaya oo xufaada caydoodii in layidhi waad ku gaalowdeen munaafiqiinta iska daa diin iyo malaa'ig iyo ilaahay iyo rasuulku afka lagu taagee yaa macshar alquraa nimankii munaafiqiinta ee yidhi abaadar iyo suhayb iyo bilaal bay arkeen oo meel fadhiya weliba safar bay ahaayeenoo qaswad jihaad bay u socdeen war qoladiinnan qur'aan akhriska badan lahow baa lagu yidhi marka cuntada la cunayana maxay niga cantuuga weyn marka dagaalka la galana maxay niga fulaysan ereygaasi ka warrama waa ereygan iminka soomaalidu ay tidhaahdo haddaan culumooy cadcun mooye ciidanka haddayo xaggaa qolooyinkaygaa galbeedka yidhaahdeen haddaan culumooy cadcun mooye ciidanka haddayo maxay ka dhigan tahay hadalka ninka munaafiqa uu yidhi cahdigii nebiga sal alla alay wasalam yaa macshara alquraa ururkiinan qur'aan akhriska badan lahow marka dagaal la galayana maxaa iniga fulaysan marka cuntada la cunayana maxaa iniga cantuuga weyn ereygaa iyo ereyga innaku aan leenahay isma tegin yah waa istegeen ereygaa baan la yidhi may waad gaalowdeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wax cudurdaara ood sheegan kartaan ma jirta baa ilaahay ku yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi iimaankiinnii kadib gaalnimaad ku dhacdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen famaa maxaad u malayn markaa ninka ilaahay nebiga afka ku taagayana ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno ilaahay rasuulkiisa kitaabkiiyo sunnada nebi maxamed raac warka culummadu ay kugu yeedhayaan baaqa culummada ajiib waad liibaani adduunkan iyo aakhire kuwa ilaahay nebiga raacay haynaga yeelo insha allah dhahada maasha allah ku dadaala khayr baa inoo muuqda khayr baa ifaya zaman wanaagsan baad moodaa inuu zamankan yahay runtii sida ummaddu khayrka ugu soo jeesatay innakana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu khaatimada inoo hagaajiyo waxaa khayran sheegaynana ilaahay inuu ka yeelo ikhlaas oo maalinka qiyaamahana ilaahay naga abaalmariyo